السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلي والما فكر في هذه كلها تمام. سيدان في هذه كانت تمام وانيجي واديكي وانا قولن تقلف official. سيدا أمود أكسونا هاي سيدا أبربري دالكينا قلبية بدن أي أبربري sidoo kale dad badan ayaa la fadhiyo sheekooyin badan oo jeceladooda hore iyo qalbiyadooda hore siday u jabeen. Okay, mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo ku dhacay dhibaato aad u fara badan qise ay ka sheekeynayso ayaan la wadaagayaa ee dhageysta aan ku sii socono. حالته waxay noo socotay inankii oo ii diyaariyay tigidhkii ayuu yiri waxaan tagay what happened as well nothing I'm talking about sorry dadkaan sheekada la soconin halkaas inta kale maalin kale idinku noqon waxa dhacday wiilkii ma garanaysaay wuxuu ii keenay tigidh wiilkani wuxuu ahaa wiil aan aad ugu faraxsanahay hadalkayga dhagaysta iqadariya aad u udgoon garamaanta cadcad kashta shaararka badhanada xidha ma garanaysaa kabayaasha buu jecel yahay salada buu xiran jiray ama habeenkii koowaad la kulmay wuxuu gashnaa kaba saladana laakiin markii dambe kabaha buurka ah ee magaranaysa suudka loo xidho ayuu u xiranayay wiilkii adina waxaa dhacday wiilkii waxaan go'aansaday wuxuu yidhi beritoole waxaan doonaya inaan sababa isku raacno hadda sababaan isku raacnay inankii sababtaan waa sabab u tagnayna qaniin iyo howlahaas ma jirin marka hayla gelina sababtaan ugu tagnay waxay ahayd maxaa la yidhahdaa gabadh ma garanaysaa isaga ay maabti yihiin ayaa la aroosay aroos qurux badan oo maasha allah ayaa loo dhigayay kabacdina arooskii baan ka qayb galnay markii aanu kasoo baxnay airportkii waxaana laga soo doonay airportkaana laga soo doonay inama reer hargeysa ah oo Addis Ababa kaga soo horreeyey ayaa lagu soo doonay si maasha allah ayaa laga soo dhaweeyey waxaana la geeyey hoteelku aad u qurux badan buu ahaa meeshii baanu kulli wada fadhiisanay inamadii markii ugu horreysay wiil baa horta shaqo ay ku siiyey inamadani markaa waa inamo isaga is yaqaanaan anigu laakiin aanan hore isku garanaynin kabacdina anigu hore isku garanay wiilasha markaa baan anigu arkay habeenkaa maalintaa badda igu horeysa aan kow is aragnay kabacdina labadii inamood mid baas ay yara eegay kii baa yidhi waan kaa yara helay iyo dee waan yara dareemay kolley in ishu aniga igu soo yara badan tahay kabacdina waxaa dhacday maalintii qadadii baa layidhi qadaa laydin samaynaya marka hore meelba qada laydinku samaynaya qadadii baanu tagnay maalintii dambe arooskii baan marxiisiin ka noqonay inantii waxay igu tiri waa kaa helay waxaan doonaya marxiisad ii noqoteed okay baan idhi marxiisad baanu noqday arooskii baanu tagnay taashashkii markii aynu soo baadhanay waa waxyaalahanan ilaabina qalbigayga weli ku sugan ayuu igu yidhi taashashkii anigoo yara eegaya oo anigu welibana nooca dhuluuban baan jeclay taashashka nooca ballaaran ma jeclay ayuu igu yidhi ma jecesha inaad maalin xaaskayga noqoto marka waa jawaab kari waaye ma garanayo maan farxay maan naxay mise xidhiidhkaygu inuu heerkaa gaarsiisan yahay ma filanaynin xidhiidh guur inuu gaarsiisan yahay koley inay sheeko untay taagan tahay baan ogaa in badan ma garanayo ninkan guurka iyo waxaa waan aadna waan u jecelo waan uga helay horta waan garanaya laakiin in heer jacayl gaadhay weli ma ogi waan ku jecelahay weli kuma odhanin laakiin waa sheekaysanaa oo waa kaa helaydaas ii taagantay aniga laakiin aad bay xawliga aan ku socdaa xawligii jacaylka ah kabacdina wuxuu igu yidhi ma jeceshay maalin inaad xaaskayga noqotid anigoon weli uga jawaabin ayaanu hoteelkii tagnay markaan hoteelkii tagnay qolkaygii baan tagay isaguna qolkiisiibu tagay gabadhii iyo walaasheed baa timahaan habeenkii ka yara furfuray waan yara caawiyey markaas markaan meesha hoteelkii tagnay gabadhaan timaha ka yara furfuray etoobiyaanka timay kusoo yara dabteen timaha ugu dabnaa timihii baan inantii ka furfuray habeenimadii inankan markaa aad baan ugu qanacsanaa kabacdina markii aan waa ka yara fikiray inantii baan ku idhi markaa wuxuu igu yidhi wiilkii maalin haddaad xaaskayga noqotay ka waran waxay igu tiri waxaad samaysaa ha guursanin iminka ha degdegin ba igu tiri ka fiirso ninkan in badan ma garanaysid waad jeceshahay waan arkaa laakiin ka yara fiirsa ba igu tiri inankan iyo anigu waan hadda isguursanay 8 sana isna qaanay kabacdina waxaan ku iri okay haye inantii maalinta dambe wuxuu kusoo noqonaya hargeysa shaqaan tagayaa buu yidhi Djibouti baan marka hore maraya kabacdi baan hargeysa ku noqonaya aniguna waxaan ku yidhi okay ticket baan goosanaya hargeysaan imanaya aniguna haye ticket baan soo goostay aan hargeysaan iman soo Djibouti buu maray hargeysu sidii ku yimid muddo marka dhowr cisho ah 3 maalmood codkiisa ma maqlin 3 maalmood igu murugada badnayd bay noqotay 3 maalmood maalin walba waxaan israada maanta ma garaacdaa maanta ma la hadashaa maanta ma weydiisaa xaalkiisa ku sugan yahay hadana markaan telefonkiisa aan garaaco waxaan garaacay telefonkii uu ku haystay Soomaaliya
ma shaqaynayo maalintii oo dhan ma garanaysaa murugo waxay yahay fikir bay ii ahayd calool xanuun bay ii ahayd waxaa dhacday markii dambe waan isku dayay inaan ku celceliyo dhowr jeer maalintii saddexaad buu ila soo hadlay wuxuu igu yiri walaalay waxaa jooga magaalada waan imiday anna marka waxaan ka filanayay inuu markii intuu jabuuti ku maqnaa maadaama wiilkan in badan xidhiir naga dhexeeyey in xoogaa yada xidhiir naga dhexeeyey inuu si wanaagsan ii soo xidhiiriyo inuu ma garanaysaa markuu maqan yahay saddexdaa maalmood uu ila soo hadhadlo markaan imaday wuxuu igu yiri walaalay waxaan doonayaa laba mid inaan soo gasho inaynu isguursano maalintii dhaweyd igamaa jawaabin guurkii inaynu dad isguursano oo isqabnan ahaano iyo inaynu saa ku kala maqnaano labadaa mid soo gal waxaan ku iri waa sax waynu isguursanaynaa waa sax baan ku iri haye marka wuxuu igu yiri waa inaad reerkiina u sheegtaa waa inaad aabaha u sheegtaa waa inaad teleefonkooda isiisaa waa inaan la hadlaa reerkiini waa inaan reerkiini kaa doonaa aabahayna waa lasoo sheegayaa caawa haye baan ku iri marka hayadan anigu haye iga wada dhan ma aha laakiin qofkan waan jecelahay waxaan isleeyahay xiriirkii sidii saddexdii cishaadu weyday oo kala duwaayaysaa marka la hadal waan la hadlay aabahay baan la hadlay waxaan ku yidhi aabo wiil baan ka helay wiil baan soo jeclaaday wiilkaasaan doonaya inaad siiso wuxuu igu yiri wiilku wacayo waa reexayo waxaan ku yidhi ma garanayo wuxuu yahay waa qoorgaab waxaan ku yidhi inankan waa qoorgaab ma aha maxaa la yidhahdaa celu yahay ma garanayo kolley anigu adu calaayi kulli xaal reerkii anaa soo helayay wuri reerkooda inankan lambarkayga sii lambarkii baan siiyey way iskarteenba reerku oo reer waxaanu noqonayba ma garanaysaa isku sii dhow oo dee calishaan xiriirkooda aad u dhow yahay baanu noqonay oo marka qabiil ahaanba la eego qabiil isku sii hoosa oo wada faamiligaanu noqonay ka bacdina wuxuu yidhi okay reerkeeniba weeyaan waa maasha allah waa sax haddaa hooyada iyo reerkaygiba etoobiya ka yimiday aroos qurux badan baa naloo dhigay oo maasha allahya oo 7 maalmood la dabaaldegay 7 maalmood oo gam ah ayaa la dabaaldegay horta aad baan faraxsanaa waxyaalo badan oo igu cusubba ayaa jiray waxaa igu cusbaa dubay buu tegay alaabo badan buu ii keenay kaashku wuu igu cusub yahay dharka quruxda badan dhar aado qurux badan buu ii keenay dahab buu ii keenay waxyaalahana way igu cusub yihiin waxyaala farxad gelinaya waa waxyaala ma garanaysaa gabadh kastaba way jeceshahay calashaan welibana qof aad jeceshay marka wax kuu keeno aad baan ugu faraxsanaa kabacdina maalin wax kamida ayaan markii reerkooda oo ingiriiska ka imanayay baa la sugayay isaga gabdhahooda iyo hooyadood axad ingiriiska ka imanayaan waddanka imanayaan markay waddanka yimaadaan ayada xafladda dhiganaysaa marka meherkiin baa dhacay baanu baabuur kasoo wada raacnay aniga isagu markaa waan isku mehersannahay laakiin xaflad meher maanaanu dhiganin waan idin soo yaro kala dhaafay sorry xafladda meherka intaanaanu dhiganin ayaan baabuur isla soo raacnay inan xasan bariise loo yaqaano laakiin magaceeda sheegi maayo laakiin xasan bariisaan ugu yeerna oo aanu asxaab nahay oonu isgaranayno oo gabadh aad u qalbi wanaagsana ayaa waxay samaysay daaqada soo istaagtay gaari marka aniga ima aragtay inaan shirka hore saaranahay isaga gacantiisa dhinaciisa soo istaagtay dee baabuurka u ka wado waariyaha hebelow qoorgaab bay ku tiri siri hee markaasay tiri inantaa magaca baan bixinaynaa kale waxay tiri inantii loqotaraq ahayd mad kala hadheen maalmahan iskuma bakiin arkine anu markaa jow waxaa yeeragal shaki baa galay okay markaasay saa usoo qornaastay aragta anigii allah oo asmaaba kula socotee asma ma fiicantay oo goormad inaan ka reergiisana baratay alla hargeysiga dhaqso badanida ayay tiri waxaan ku iri waan bartay waan iska aamusa marka mar haddaan iyadii garanayo waxaan sir hadhow toole ayaad raadinaysaa ood weydiin doontaa naagtaasi waxay ahayd iyo sheekadu waxay ahayd ilaa ninkan wax information oo aan ku ogahay baaskiisii noloshiisa midna ma jirto kabacdina markii aan gurigii tagay baan inantii habrudaagtii weydiiyey waxaan ku iri inantii xasan bariisaan bixinay inantaa xasan baa leedhan walaalay teleefon aan ka hela ma garanaysaa inantii habrudaagtii waxay ku tiri yes waan garanayaa teleefonad ka hesho lambarkeena markaasay leedahay hadal waa la hadlay waxaan ku iri walaal waxaan doonaya idii timaadid ninkii baan dhow maharkayga dhacay waka faamiligiisaan sugaynaa inay xafladaha iyo waxaan samaysana waxaad ii sheegtaa ninkan inantii aad ku sheegaysa luga baasto iyay ahayd waxay igu tiri horta nin sheekan ku haya dhigayso ninkan ma garanaysid waxay igu tiri u yarakaada inantan luga baasto waa inaan u shaqaysaa isagay u shaqaysaaba haye luga baasti isagoo gab baa laysku yahay gab iyo caashaq waa laysku yaho hadda ka horna waaba la israacayo waxay tiri wallaahi igu dhaaratay inaysa soo meherxadeen oo iyadu markhaatiyada garanaysay life u garanaysay hebel goornasa markhaatiyaa meherxad ka sameeyey muddadii ugu dambaysayna una inantaa teleefon ka qabanin
وحريرة ونلا سمعين وينات هذه اللي قوي وينات هلكا كبرورانيش كبعدنا كل وقت قرن نساء قبر مرugaysan oon waan la naxay markii hore waan la murugooday haddana anigu qofkanaan jecelaha markaa maskaxdayda markiiba automatic waxa soo gasho been bay sheegaysaa hadduu naagtaa kala rabo muxuu soo u guursan waayay sidayda oo kale meher kusoo guursan waayay oo uu u odhanayaa wuxuu isleeyahay muxuu dooni waaye uu sidaada meher ugu samayn waaye oo faamiligeeda u weydiin waaye oo uu caadi u guursan waaye ninka saqjaanimo kumaad aqoonin ninkani meher xadka maba samayn karaan inantii baan afkii kaga booday durba aan ku uri matii laga baasto bari hore iyadoo la sheegsheegayaan ogaa haddaa ma maqal iyadoo la sheegsheegay iyada igu horreysay afkaan kaga booday waxaan diidanahay inay cid kalena usii sheegto waxaan isleeyahay intaanay ummadda kalena maqashinaya wadaagta u sheegin inay xaafadda u sheegin dadka aanay u sheegin afka kaga bood daameer xadkii waxaad sheegaysaa waa maxay ma wixii warkii la sheegay beenta ahaa markaasay tiri asmaay walaalmaad ninkan iska dayin anigaa garanaya waxaan ku waxba kaama gelin walaalay been baad ka sheegaysaa inankan waxaan ku uri gabar hal noqonaa kusoo garaacay beentii magaalada lagu wareejinayay baad doonaysaa inaad adiguna halkan keento marka waxaan u aamusiinayaa number one niyadaydaan dhisayaa qalbigaygaan dhisaya oo sababtaan u dhisaya waxa weeyaan beentan aan qalbigayga ku qarinayo dhaawacayga ilaalinaysaa waxay iga ilaalinaysaa niyad jab qofkii aan jeclaayo qof kaluu qabaa lay leeyahay qalbi jabkayga ilaalinaysaa ta kalese waxay ta kalena waxaan diidanahay inay faamiliga iyo dadku ogaadaan ninkan aanu keenay meherkani dhacay علشان meeshan aad isgelisay maxay tahay weeye inaan yaro mustaqbal baan ahaa wax baranaysaan ahaa loo hanweeyaan ahaa faamili ugu yar baan ahay farxaaniyadaan ahay علشان furfuran dadka dhex gashaa qosol badan ma ihi qof magaranaysa la juujoobi karo iyo qof maxaa ku geliye badan علشان maxaa ku juujoobay oo mustaqbalkii intuu kaa soo yareeyay nin aad intaad dhowr cisho baratay aad la kortay durbaa waxaasoo dhan baa iman karaa marka waxaan siri istaji niyadda khayr u sheeg waxaad samaysaa sheekadan halkaasaad ku daminaysaa anaa markaa tashaday halkaasaan sheekada afka ka saaraya etoobiyaanimana waana lagu yara xantahay shakiraay sheekada afkaan ka xidhay waxaan uga xidhay waxa weeyaan oon diidanaa inay inantaasi ay arrinkaas soo sheegto oy ka hadasho kabacdin dhowr cisho kabacdi inankii isagii baan weydiiyey habeenkii waanu casho tagnay hudheel maasoor la yidhahdaanu tagnay habeenkii markaanu casho tagnay aad baan murugaysanay waan xanaaqsanay cadha ay haysa cadho badan baa igu jirtaa markaasay igu tiri ayuu gacantasaa isoo qabtay wuxuu igu yidhi istaji waxaas ma jiraan naagtani ma jirto naagtani way ii shaqayn jirtay buu yidhi xayisiisyaduna ka shaqayn jiray isaguna meeshu ka shaqaynay ma sheegi lakin xayisisyadu ka shaqaynay markaa waxyaalo badan oo xayisiiskan u daawacay buu yidhi shirkad bay wadatay markaan u daawacay sorry iyadoon lacagtii isiinin bay ka qaadatay buu yidhi markay lacagtii iyadoon bixinin ay qaadatay muddaanu shaqaalaysiinay inay nala joogto oy macaashkii soo celisay dee lacagtii ay naga qaadatay sheekadaasna sheeka beena ila ekaatay aniga kulli laakiin xilligaa mar dagaalkii ma sii wadi kartid moogtahay oo aad dagaalo badan baa jira muran badan baa naga kala dhex dhacay ma wadi karo marka waxaan siri iska aqbal cashan meelaad kasoo noqotaana ma jiray sidii iyadoo ah habeenkii anagoo maan soo fadhina baan sawir galnay sawirkii baan facebooka soo dhigay aniga isagoo wada fadhina oon kusoo qoray marka anigaa nin rageed hantiyey وهيصير يلا سوق أنتري أنا هجار نيجر حاجة تي هذا ملاك صاركتو بلا تقدر تاكل من تيرك صارت أنا جار نيجر أنتي ولي بلا دلعي يقول حب أنا مسافر أنا بقول أيام صاقة ليصور كي صادقة ألا محل وقت ما شتم كبعدين حبيت أصور كام حكوا صادق قري ما كان إنا كذا قاعد تيسن صدق ويراعي ما صور قار كمان قارت كمان بسوي لي كذا بقرب كاسي يحبك بسوي لي كودي intaa horta wejiga waa ka qurux badnaa waxba ka sheegi maayey indha qurux badanna wuu leeyay waad aragtay indha wuxuu leeyay maasha allah oo wareera inankaas intaa qoorta horta dhibkaasuu lahaa wallaahi bilaa wadoogta laakiin wuxuu lahaa indha cajiiba af cajiiba sanku waxaan ku uri mataanaa dhinac laga moodaysa horta markaad say noo eegtana saray ma ilahay nanaysan kowdhi inankii horta jacaylkii hab igu yidhi kabacdina markii aan inankii muddo horta sidii aan buuqiyo wixii nagu soo yara badbatay oon sidii isku yara buuqbuuqayna bay faamiligiisu yimaadeen waxaana loo dhigay horta aroos maasha allah oo wareera oo waxaana loo dhigay cajiibaana loo dhigay waxna waa haysteen oo waxay reer alle wax siiyeyo afartooda shilin farta ka geliyey kabacdina waana inan yaroo dhalinyaroo aad u shaqaysto oo lacagna deele weeyaan kabacdina
والله بانكو توبكيك حتى إنجليز كالي كان وحلا اسمي أروس عجيبة aad baan ugu faraxsanaa waxaan oo dhan inarkay dhalaalkan aan arkayo kabacdina anigiyo habiya ayaanu inankii aqal galno oonu naagtii iyo wixii iyo tii dukaanka meeshii u shaqaynaysay iyo wixii iska ilawnay oonu bismillah iska nidhi baan anagoo iska degan iska galnay gurigeygii maasha allah markaanu 3 bilood gurigeygii joognay ayaanu inanteeda noocan oo gashay markaan 3 bilood uur lahaa ayaanu habeen israacnay wuxuu yidhi baabuur baan rabaa inaan kuusoo iibiyo because magaaladan aad joogto baabuur la-aan lama socon karayo adiguna bilaa baabuur baad markasta doonaysaa inaad socoto marka waxaan doonaya inaan baabuur kuusoo iibiyo meel baabuurta lagu iibiyaan ku geynayaa oo isagu lahaa markaa waayaan ku odhi meeshii baabuurta uu lahaa buu igeeyey baabuurtii baa markaa kan ma doonaysaa 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 baabuur baan doortay baabuurkana doonaya baabuurkiiba igu yidhi okay waa lagu soo kaxaynaya waan kasoo baxnay markaa meeshii markaanu meeshii kasoo baxnaynu gurigeygii soo gelayno ayaa guriga hortiisa waxaa ku qoran rinjiyada ma aragtin guryaha lagu rinjiyeeyo rinji qoyan ayaa waxaa lagu qoray magaciisu erigu xarafka uu ka bilowdo loof iyo inantii aan ka shakisanaha logabaasto l magaceedu loof iyo l oo rinjiya ciyaar yareero wax kusoo warayaan ma jirtaan waa albaabkii gurigeenii xarfahan waxaa loo soo gaabsaday magaciisii iyo magacii inantii aan ka shakisanaha ayaa loo soo gaabsaday waa xanaaqa xilligii cadho ayay qabatay cadho badan baa ay qabatay waan gubtay waan cadhooday isagii baan ku xanaaqay halkanaan ku qayliyey anigoo ooyayaan iska soo fadhiistay islaan jaarkaygaa ii timid oo qaylidii noogu timiday waxay igu tiri maxaa ku helay edo waxaan ku yidhi aniguna markaan ofiska calool furan baan ahay wax walba inaan ka hadlo calishan waxba ma qarsan karo haddaan murugaysanahay waan ka hadli karaa haddaan faraxsanahay waan ka hadli karaa wax walba inantii baa ii timiday waxay igu tiri waxaad ii sheegtaa maxaa ku helay waxaan ku yidhi waxbaa rinji baa halkaa lagu qoray waxay ku tiri nay dhegayso gurigaa xasu ma degenin baabuurkaa ninku soo doorasoo ku meedho ninku soo kuma biilo ninku soo kolba waddan kuma kaxay kolla dubay ma tegtin kol halkaa ma tegdo lugaha saa maad kala dhigin meel inanka yar ina yaro alla wax siiyamayey naa lacagtaada dhuuqo shibdhow afkaaga laba yaro saar waa gabadh weyn bay ahayd talaaka weyn baan filayey علشان ما قرأنا ساي قف إلى يربان هاي أد بانو يرى مركانة تينيج بانها وحن فيلاني ما قرأنا ساي نيجو ترى هذا حقوق ومقلنتيت إنا يرى قروح بدن بعتها إنا يرى هرمس سمين كريساتها قف إمك إذا كصدق بلاد سقبك وجيت كري أو خيامي وحنا مرنا قدام الغد بعدنا وحل نري وحي قلت لي لعكت هذا يسكبوا وشبري وعندنا شيء وأفكار قلب لي رسالة أنا معاد هذا يسكريتش أنا أين أوهني أين سريرتي ذبوحن قولي ما دقته ورير مرسته ayuu tiri marka gurigaagaa joog noloshaa ku jira anigii waa fikir inankii waa jecelahay anigu waaba iskaba aamuslan macadayda waaba iska dhuuqi lahay jacayl baa wixii yidhaan markuu qofkii jeceshahay hinaasa ma joojinaysid hinaasii waa joojin waaye kabacdina mar walba waa ka fikirayaa wixii magacii halkaa ku qornaa waad igu buuq badatay buu odhanayaa isaguna haddaan hadalkaa soo qaado no guley marka inanka qorgaab af soomaaliga si fiican uma yaqaano hadda waa bartay oo hadda waa ku daayey laakiin beriga af soomaaligiisu wuxuu ahaa waa iska nidaamsanaa aniga af soomaaliga labadeedna si fiican u aqaanay anigu weligiiba sidan aan hadlay kabacdina waxaan ku yidhi waryaahe sidani si ma noqonayso waxaan siri ninkan maxaad ku samaysaa gabadh yaroo ingiriiska ka timid oon waxaan u bixiyaa caashaan u bixinaya taan ayaa igu tiri oo inan darawal isaga u ah u qabo ayaa igu tiri waxaad ma garanaysa waxa dhacay hee inantaa la sheegayo haa habeen dhawid house baari baan isugu nimido inankana house baarigaasay la joogtay waa booda ma saas ahaa haddaba caawa waa ka hinaasinayaa baan marayaan xidhxidhay dirac baan xidhay haddaan weydiiyo naftaydan la talinaya waxaan leeyahay haddaad weydiiso halkeed ka timid iyo halkeed ku maqleen midnaba ha odhanin ninkan waa inaad ka hinaasisaayo dan kolmasaa u dhex marto saala kolba dhimado maradaa yaro casnaha kuga arko mara yaro gaabana hoosta kasii gasho wareeriba ninkan timahana waan igankaa ka xidhay guud baan samaysta what the hell you doing halka ka qaatay ma guur baan ka xishooda adba kayga kamada xishooni weeyaan waaniga islabisay baadadaan isku xidhi jiray xataa waa xidhaan habeenkaa baadadku indhaha waa iga geli gaadheen waa ogaa baadadkan indhaha la saarto ilaa hadda ma aqaano waa kama xidho laakiin maalinta waa isa saaray waxaa idhi baadadkana saaro maanta haba waa la tabeen kabdheerna waa isku taagay xaflad halkana tegaya mar aroos baan tegaya haye inanaan waa prodaagnahay baan markaa qaraaca waxaan ku uri kaale arooskaan tegayna waaye arooskii markaanu meeshii nimidnay inankani mar allaaliyi markuu arooskii maqlay qolka qof hurdado ku jira intuu iska dhigay uu shanqadhaydii iska ilaaliyey baan markaan sidaa u baxay isagiina baxay
أنا مركا كشدو ما كوضع موقتها waxaan filanayaa iminku imanaya hadduu soo galaya waa kan aad ku shiday mukaadaba imanaya walac yarna waan ahay markuu qofku walac yahay hormoonkiisu waa very high waxaan isleeyahay markuu very high hormoonkaagu yahay waxaan isleeyahay amu yimaadaa fikradayda noloshayda fikirkayga caqligayga intuba waa isaga adigu waagu markuu baryo saan isaga u bilaabo ka fikirkiisa habeenkiina isagaan ku seexdaa كبعدنا وحن ماشي أروسي كل بالباك من إيجي إن أنت نهبر ذاك تبي سكتها سيسا وسك فرح سنتي حفلتي كل عشرة دقيقة كل عشرة لأن يرتبى كل بقى عن تسوق وأنا يصلي عيارسة أنا ما أركض أنا وحكليات إيه مغضى الباك قوم كسوق ليا أو سوق ليا وصوص عدا كل ونسل لا هاي ونفيس لا هاي على حنو ضاق دعي وأجي هرس لي أنا حفلت تيمتي وكاتب إيمان دونا هنا صاحية بس أنا بس إذا دريمي يبان أو هايستين مسوون دريمي نكنا واو بحصل ninkanow halkii naagtii maxay luga baasta magac loo bixiyey luga baastadii meesheedii uu tagayo house party kalaa la samaystay oo dad raaxaysanayo meel ku jira ayaan anuguna halkan albaabka ku jira ayaan anna albaabka kolba eegaya oon albaabka un daawanaya oon isleey ama albaabka kasoo gala hadda albaabka ma soo galay may ma soo galay wallahi ma jooga ninkii maskaxdayduba waxa weeyaan wallahi wuu hinaahsan yahay hadduu imanaya inantaa rodaagtee la weydiinaya waxa la leeyahy inanta yar waayo magaaladana laguma araragin badan marka waxa la leeyahy inanta yar waayo nambar inamaba ila hadlaya wallahi inay dad yihiin inay dugaag yihiin magaran lugahan kaga sii istaagaya xataa anugu hadduu wasiir yahay maalintaa waa jiiraya waxba igama gelinaayo madaxweynuhu doorkaa taagay waxa ii muuqdaa waxa weeyaan inankii wuu imanaya uu soo galaya wadnuhu saasuu ileeyahay waan ka fikirayaa gebigaygu waan daalnay ma cashaynin maanta oo dhan kolna baad in isku dhaji marna ka dheer ku boodbay noloshaydu waa ahayd iyo fikirkaydu maanta oo dhan markii cuntana ma cunin meesha dadku cuntada way qaadanayaan cuntay soo cunayaan cuntadaas igama daadagayso markii dambe waxaan idhi you know what waan iska hoyanaya gurigii baan iska imid sugun gurigii ma joogaysan igama daba imanin mar waxaa ii sawirmay intuu cadhooday ayuu tegay mar waxaa ii sawirmay ninku mabuu imanba mar waxaa ii sawirmay naagtii bula joogaa marba beel maa fikirka u qaado inaan abwaana oonu si fiican isku garanayno magaciisa ma sheegayay ayay la soo hadlay wuxuu ma fiican tahay yar tahay haa oo dee isha igu yarhayn jiray sugna berigaan gabadha ahaa intaanan guursan karo ma fiican tahay haa ninkaagii maku dulgaya meeshu maanta joogo anaad mid iiga dhigaysaa waxaad nooga dhigtay nebi yar baad nooga dhigtay anaa ku geynaya meesha uu jooga hadda diyaar ma tahay haa baan ku yidhi diyaar bana ma geynaysaa haa waan ku geynaya baabuur buu hafla soo yidhi waa nin war jecel horta ninkaasi wanaag iima wadin number one sababtuna wanaag ii wadan waxaa jirta isagu wuxuu doonaya inuu inankan kala soo fashilo oo in badan uu ii sheegay inaanan hore uga dhagaysanin laakiin aniga ahaantayda xilligaas xilli la ituso waxba may ahayn oo waxaan ahaa number one 3 bilood meelaha uur baan leeyahay inan yar baan ahay hooyaday lama joogto walaashay lama joogto dadkayga Itoobiya degan yihiin cid allaale cidii la joogtaa ma jirto aniga iyo ilaahay baa meesha joognaa aabahay ehelkiis way joogaan laakiin nama soo korin anigu cid kale oon haysto ehela oon isaga ahayn ma jirto iyada habr wadaagtay oo iyaduna iska dhalinyara ma iyo xilli ma garanaysaa aan la kulmi karayo hadduu xatuu siduu doono ma garanaysaa wuxuu yahay xilli intaad inan yar kaxayso oo teenager intaad gurigeed ka kaxaysa abaaba la tiraado oo uur leh oo hormoon leh waa iga dhammoogtahay markaad qof kaxaynayso waa inaynu caqligeena ka fikirnaa qofkan maxay ku sugan tahay waa ila cararay ninkii aniguna maryihii baa saa hata soo wax aan gashanaa garan maayo anugu inaan la soo booday 2 kabood iyo shalmad daaqada saareed inaan shaqaalaha lahayd iyo waxbaan la booday anigu garan maayo horta kulli anu baaburkii shirkii saaran baan isaaqay oo suuba ma xiran suuba lama xiran jirin halkaas diyaara oo geedsan inagee baan leeyahay meesha joogto okay way kaxay guri marka 2 daan bay magaalada Hargeysa ku taala daan sare iyo daan kale hoose weeyaan daanta aadka u shisheeya ayaa guri laga kareeyay biila ah house party baa la samaynaya aad u weyn hablo waxay gashayin dhar gaaban dad maasha allah ku jira oo maxaysanaya ayuu ku dhex jiraa inankii albaabkii baan ka soo galay waan naxsanahay gebigayguba markaan soo galay mar waxaan rajaynayaa inaanan isagiiba halkaa ku arag mar waxaan islay dhulka ilaahay baa kula gooyayba dhibanba intaad arki lahayd markaan yara nexan is iraahdo inankii aan ku idhahdo may haygeyn malaalo ma noqotaa aan israa yara calool adeeg iraahdo jimbaaskan aan baaburka ku wato ayaa dabadayga riixaya oo igu odhanaya no naayaa ninkan waa inaad wuxuu yahay soo ogaataa ninkan ciyaalo suuqee dib jirka waa inaad
كم بامركا يدير قلنا يو أو يجيد يو أو وضع يو الرياح يدبر الرياح أنا حس لي هاي حتى دوت أما بتكون على ماش أما قف كلا لا تشرب يسقي بني يو قلنا تلاتة قراحز نيجي نوقف وقانا تلاتة كم واحد على سكو قاعد ساد يحول على سكو أنا ما قرني سها وشاني الباب ممكن تعدوا الباب كم نينكا waxaa ka sameeyay waa garan waay ilaa hadda marbar baa isweydiiyay waxaan siradaa ninka maxaad ka samaysa albaabkii iga furay waan galay meesha markii aan albaashii galay qololbaab markaa meeshu leedahay guryaha hargeysa badankooda waxaa loo sameeya maqsino kala duwan waa bangalo dushana way ka xiran tahay berenda dhexdana waa leedahay qolalkii baan kolba qol saa u yara eegaa kolba qol saa u yara eegaa kolba qol saa u yara marna waa iska dhex istaaga dhex bartankii meel aan u socdo ma garanayo maryo kala jaaraan gashanahan waa la soo booday albaabka kana ku qaraacay walaalo inankii qoorgaaba halkan ku jiraa markaasu inan yara siya ayay guri qolkan ku xiga sidaa u gacanta igu yareeyay oo hablii xafladda ka timid badigu haystay ama shaqaaluhu mooday gabadh xaflad joogtaba uma ekeena kulli dirac waana baan gashanaa fag baan ka siiyay albaabkan kana inan iyo isaga halkan laabta saa iskaga jiifo hees yaro ma garanaysaaye maxaa la odhanayay heestii ma garanaysaaye salanjoon ay qaadi jirtay berigii hore ee ingiriisiga ahayd ayaa la shitay ومركز مرنا يسلو لي يلا عياري كل هؤلاء دي اللي باللعبين ما هو على رميست مرنا لعبت سالي سوق النيم مرنا اللي سريحة مرنا الله خير لو كتير وعيال وسوبود نحدين عن سوبودي نمبر 1 تعرفوا عجيب يعني دي شيء تأوجه الرئيسين كفكري ببكسي ودلقي وحمل ولي قف عالم تمية أنا واحد الشيء أنا محطورته ما إيه وتي أوجه الرئيسين كفكري وحويان يصير هجاتش يتم هجاتش نعرف إن مكان قرب بدون لا تنتجوز ضرر بالمحاري قاعد تشتري هو تضرب بابا كريستو فرديه من كبود لبض وعم لكن ما ضرني aad baan u murugooday kabacdina wuu soo xanaaqay gacantu isoo qabtay namari buu gurigaanu nimidnay caradii iyo wixii oo dhan aan idoo saaray arooskii aan tagayay guilt tripping baa leedahay waxaan waa wax guilt qofka aad dareensiinayso arooskii aan tagay buu ka soo dhigay wax walba oo uu yidhi maadaamaad arooska tagtay maadaamaad hadalkayga maqlin maadaamaad xaflad tagtay adigoo xaasle waa igu taranan guri u baxaynin maxaa aniga ii diiday adigu waxaad samaynaysa maxaan ka ogahay xaflad baad joogtay maaha marka wixii oo dhan giltigii oo dhan wuxuu dul saaray aniga si aan anigu giltoo dareemo anigu xataa raaligelin u bixiyo kolley waa horta waa ooyey waa dagaalamay waa xanaaqay waa cadhooday waan tegayaa marba haddaad igu qaylo badato igu buug badato dhakada iga cuntay oo saa ii cunayso guriga aabahay baan tegaya adigu gurigan aabahan waa guri laygu cabsiiyo magaalada ku yaal guriga aabahay baan tegaya mar allaaliyo guriga aabahay baan tegaya markuu yidhi baan aniguna ku idhi ha tagin waa baryay ha tagin waan wada hadlanaa labadiina xalisanaynaa labadiina ka wada hadlanaa faamiligeena ka wada hadlanaa ha bixin baan leeyahay kabacdina uu no guriga aabahay baan tegayaa waxa adigoo xaflad tagtay oo dhagaysanin maxaa doonisay guriga inaan dhex fadhiyo maxaa doonisay fikirkaagaa isku kaa ilowsiinayay adaa waxaasoo dhan igu cabur kabacdina guriga aabihii buu sida habeenkii ku tegay habeenkii aniga waagu waa ii bari marna salaadaa tukadaa mar salaad jimcaa tukadaa mar salaadihii ma garanaysaaye sunnaha ahaa salaada saa uguma fiicnayn anigu berigii hore faralka unbaana qaaday sunnayaal laakiin anigu sunno horta 8 sunno waa tukaday habeenka oo faralkii dhaafsiisan kolba qab baa ka siinay ducadan waa ducaystay ilaahu hadduu sharba ii yahay khayrba hadduu yahay isagoo ii soo celi bay hadad ducooyinkayga ku ducaysanay waxaan kaloo ku ducaysanay ilaahay mar uun isaga ha ii keeno haba igu xumaad dushaba haygaga xaray hadda kabacdi sidiisaasan ku haysanay saasaaban ku rabaaba oo waxyaalahan anigu aadka ugu layaabka badan ayaan soo maray kabacdina ilaahay sidaan u baryayay habeenkii kolba ayay igu tiri inan shaqaalurtay la joogtay ma ilaabo xamuuradeed baan marsanaayo anna isla ducada halkii ka xidhmi laaday mogtay oon ilaahay baryayo welina albaabkii uuna soo qarqaraacaysan ayay igu tiri xamuurada lama ogola in lagu taga salaada lama aqbalo ilaahay wuxuu yidhi xamuuradii xaqay qolisay halkan aad ilaahay baryadiisa aad ka heli laadahay waa ku soo noqon laa mar hore intaad ilaahay barida waan ooya wallahi markaa waxay igu soo istaag waxay ilmadu igu soo istaagaysaa marna waa murugo marna waxaan soo dhaafayna laakiin xamuuradii yareed ay marsanay ayaan siri wallahi salaad meel bas ka xidhi lahaa halkan aad ilaahay ka baryayso albaabka waa kisoo tumi lahaa ducadaada aqbalay إلا واحد كلام كسيك لكم حميد القلب في عبات هاي قبل القلب في حبان هاي مسكينة بانا هاي إيران غير كده إسكال شوك تانا هاي أوربان ليها إلهي دعاء ذي الوقت ليها إلا خير يشرب بيك وانا قررين حمورات ديالي بانكول والله
حمورة لما أقبل مياه سيتر هلا ما أقبل حمورة يرين كي ما أقبل صلاة دي بنا سيركو عليها طبعا تي هرا لا ما أقبلني هذا يبحي طبعا وكعشري صلاة كلام وابري تلافون كي لا 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 بلكو رد عديلها هلو ويسا جابي هلو هلو مركان ها أيوة هي أبو باكي صور بودي مكتب سوري inankaygu anigu inankayga qurbaha waxaan uga keenay meel ku shageerta asaan idhi maya inankayga waxaan qurbaha uga keenay inuu dego inuu xasilo inuu reenreeno inuu nasto inuu gabadhii beedba helo iyo guriba helo gabadh cuntaa oo sariirta ku dul cuntaa oo dhagahada ka cuntaa oo maskaxda ka cuntaa oo qalbiga ka xagataa oo habeen soo saartaa oo waasha ugumaba talagelin baanu reerkaanu ka dhalanayna kuumaba sheegina buuri reer hebel baana la yidhahdaa gabdha hadday qoor yihiin kuwa qoortu intaa leeg tahay ayaa noo jooga haye 4 iyo 2 iyo 3 iyo 5 waa ka guursan karnaa garabkaa iyo garabkaa waa iska dhigaynaa adiga isagaa ku doortay laakiin marka waxaa kuu sheegayaa anigu inankayga xasilooni ayaan usoo dalbaday oon u keensaday anna marka waxaan suganayaa mogta markaasaan ku yidhi aniguna markaa ma ihi gabadh dhaqanka iyo si ku fiican dhaqanka cashan soomaalida iyo aada ugu wanaagsan may waxaan ku leeyahay odaygii baan la hadlay waxaan leeyahay aaba waan jecelahay ii soo celi fadlan baan leeyahay mogta isaga odaygiina wuxuu leeyahay inankayga xasilooni baan u keenay hablo saa u qurux badanoo geel kaalaa la eego saas ayaan heli karnaa haddaba odayga weyn xaal iyo waxaana ma garanayn berigaas xaal baan dee maxaal baan aqaanin waxaana ma aqoonin odayga horta qalbiga waa iga xagtay odayga hadalkiisa anigoo ka naxsan hadalkama si fiican uma dhegaysanaya anigu waxaan isleeyahay mar goormu soo noqonaya okay wax kale goormaan xalinaynaa goormu iman karaa aniga isagaa doonin inaan isla hadalno taleefonka ma kala hadli karaa ayaan taaganahay anigu heerkaasaan taaganahay markaa oo inankan inaan la hadlo maa rabaa may imika iska seexo waagi markii uu baryana isku kaaya keen ayuu oday kabacdina markii waagi baryay anigu habeenkii o dhan horta 2 indhood iskuma keenin soomaalida to stay strong inay is adkeeyaan naag adag iska dhig cadowga ha isku jiro anu cadowga fahmiba waayo cadowga waayo beri horaabal iskaba oyi lahaay jaarku yaanayna maqlin cadowga ha ismaqashiinin gabar kasta oo soomaaliyeed 9 cadow way leedahay 9 cadowga oo qaar visible yihiin qaarna aan visible yihiin qaar la arko qaarna aan la arkin waa baji baaday doonaa hush cadowga hana maqashiin ha ooyin xajisa ilmada waa lagugu sheekaysan waa lagu caayinaya oo caydii sheekada ma marba maxaa lagu caayi maxaa ceebo cadow bay ku leeyihiin taajiriin maaha waxba ma haystaan qaybi qurbahay dawarsanayaan qaybi waddankiibay nin lacag ka sugayaan qaybi waxba ma haystaanba cadow heesaha soomaalida dhawada cadow iyo waxaa ku jira haddaan ishaan ka qoslaya iyo haddaan cadow u heesaya maxaan haysanaa baasboorkeena xataa uu dhacyaana ictiraafsan ku soco waa fahmi waay anu cadowgan waa garan waaya cadowgan haysta waayo hablaha soomaalida codkar bayaan waanu hadlaynaa oo dhibaatada waanu ka hadlaynaa oo mid murugaysan oo qol madow ku jirto imika tii aniga taydii haysato oo oday yari hadduu doono dhakadaa ka haysto ayaa odhanaysa war nagala tag inan baa maqlaya isaguna jacaylsaa u dardaray soo odhanaya naa nagala tag waa la hadlayaa waa laga ooyayaa haddaad saad noqoto waa ka hadli karta dad baa ku xamaraya dad baa kugu sheekaysanay ha sheekaystaan dadku oo ha nafisaan iyaga laftirkooda hadday sheekadaa rabaan inay ku nafisaan war naga daaya dhawan hadlanaa anyway odaygii waagi markuu baryay waa sugi kolba daaqada ka eg kolba halkan ka eg ma fadhiisanayo aniguna waxaan qabaaba waxaan isleeyahay anu dulqaad wax la yidhaahday markii la bixinayay dulqaad wax la yidhahday samir wax la yidhahday aan laymaba siina xaaraantii dhaba xarmay inaan samir lay siina kol waa ordaa orodkaa kaaga daranayo enerjigaan anigu qof ma ihi magaranaysa guryahana si fiican uga shaqayso oo gabdho shaqaale ah joogo oo maalintaa waa boodaan ku dhi waxaad moodaa jin in layga saaray mooyaane wallaahi bilahi shakira waxaad moodaa in jin layga saaray mooyaane guriga nadiifi birkinta qaad bafay waxaan ku leeyahay rooga qaad yaa la odhanin yaa wax lagugu soo sheegin wax guriga nusa saasaa u masaxay kolna saasaa u dulmaray gabadha shaqaale bistaha dhowsa loogu daboola isaga yaa biyo
gabadha shaqaalada wayaabato waxa isla tii leeziyada ahayd ka bacdina saasaa u orday bab roogi inanti waa qaaday waa dul maray inanti wayaabanta waxay leedahay waa xasidan waxay noloshani naagtana lagu sidan kuma ogeyn naag leesiyada ahayd markii ninkii haysatay ninkii labadan cusub ka maqan yahay sotani waa dul maraysay la kolba waxaas leeyahay waxaan yaanay kuga arkin hasday babday guriga horta kor iyo hoos meel walba waa marifay waxa ku leeyahay rooferka maxay anigiina timii kon halkaasaan u xidhay kon laba dhinac anu aakhiritaanki waxa ogaa anigu madoobaysay indhaha halkaa mariyay dushiisa labistigta waa ku wareejiyey wax walba waa ismariyey meeshii markaan soo fadhiistay هسا أفرديه لما ذاك عمود بس صار فرديه بس أفرديه وحيد ذهب ويكان أنا واستو صار كل واحد أنا حصل لي تكتب بيه ذهب كان قاضي حد وقلت ذهب كان درع على واسف صحرا شد قولي قولت الساس كسفرس وإيمان واعي شمتي دقيقة يقول بب هذا أنا جي ذهب كي قب واسلو رجينا سلس كب فراجش ويجوا وين هتيتونا واو وين راسمال بنا وسطك حيا ولا ما بحب أسر كاش يقول وين راسمال سكوضه ولا أرضي وحبوا الحرنا هنقول وحي أنا هيستي قلت دقها واسكت الكشري سلس كحتى ما كان دقها أنت نحكي لي أي دقوا يوسف سوريين قالوا وحبوا واقع تأذو وحي أنا هيستي بدي ما سلام ماري راسمال ما تستعصب على سطح كم حيسا وان أرضي أبن أرضي بالباب كي وينه أيام نستاجي مركز الباب كساوي ينفر ويري أي باب الكود مصوص قولوا الباي إن أنت شغالة حتى كسر نقدنات شغالة هذا نطرية صبر الآن تيجي فضايتك كوب كان قال إن أنت وادرية شعلنا وأي حاجة مركي جهرنا وصل فضايو أصل كنا واضح كبعدنا وحلي إن أنت باش كلي كع أرصايد الباب كنا جوجان ماي بقينا ده حلو جوجان إن أنت إلى جوجتنا إن فرعون معي هيني وحيد قبل سنة وتقولوا ماي هاي أنت ترى هذا قلب ويرى لو جاي سنة كان شارك بين صفر بالكهر بوده ها أنا جيب الباب كورتان فر ها وضيقي آخر تانكي ويبعد إنك وسوق على باور كودي يبغى تشارك هاي صافر يسوق بحب يسرابه حبا محبيني بالفريسو نبض ما كبر ذي حلقة إيه الساقي ما نسكري مكسيدي سبانو متليه ها وان كبري نبض ما في عندي أنا مركا ودوسا سويلي بب دانس أيوة هالكاسة ورح ياري وضو إنا كنا هالكانوا فرديا عديو عناينا كان قورقا بانا دي شايك حتى بي مركي استرسان معرفتي أما وحكا فكريان بس كسايدا ويان ما حد لا يسعى بولين أحنا صعب يرى من عنايا wax weyn qof ma kana sayra stress iyo ala weeyaan odaygi ba saafris haa waxa uu diina ma ku barday abo haa ku bari abo anagu qurbaha aan joogno wadanadaati qurbaha iyo meelaha aan ka nimid separation baan lanaana dee hablaheena ma garanaysaa wadankeena dee jooga hablaheena ma garanaysaa Soomaaliyeed barigi horana يعني مركان وانا حسنا محاكا سوس على أصله وعطودان أيودي وادو تجرين أو ولي قد بيدو تجرين حلوه وشن دودير قحتانو مركل اسمه وايو أي ميلو مذا يدير غير كودي شن دودير العادة هاك باني كس أنا واحد كلام ياشا من جرتو أفرتي الذهب وان سولان هاوي سوري بأفرتي الذهب يعني كان نشعلهم كتير كان لا يكون مساوي ريجي حتى وضعها تعال حرام يقول هذا يوضع taasoo isaaga isagu ma hadlayo waa absigan odaygu ma hadlaya separation baan nuraana gabdhahuna waa dudaan shanta daada qaado adigu halkeed urta waan ogaa inaad halkaa Ethiopia ka timid laakiin ma halkaasaad ku dhaasa haa waa halka inaan isku dhaqanka ka ahayno ragga lama eryado aabo lama eryado ragga lama daba carro dabdabda ilma yidhaahdo raggu iyaga gabdhaha doonta oo la xawsada oo raadsada oo waxaa meesha socda haye ilmo way igu soo taaganta like very young waxaan ahay waa dhowr iyo toban sano waxaan kan iga sheekeynaya waxaan ahay inan aad u yar oo af soomaaligana si fiican u taqaana oo odaygana hadalladu leeyahay oo dhan waa qabanaya markaaba gabdhadu waa halkaad inaan isku dhaqanka ka yarahayn hoos busaa igu yara dhigaya afkaan la boodi lahaay oo odhan lahaa isku dhaqana baxaya yacbar odhan lahay laakiin wiilkanaan jeclay moogtay kiibaan hoostasaa weegi hoos leeyahay iimaanlahan muu kaa qabto odaygan ula hadlo qalbi jabkaagaan iska moodatidi maya waad iska tegaysaa buur reerkii baad u tegaysaa baabuur baa banaanka taagan baabuurkaasaan doonaya inaad raacdo
waxaan doonayaa inuu ku geeyo xuduudda wajaale xuduudda wajaalena gaari kalaa kugu imanaya gaarigaa kalaa ku qaadaya wuxuu ku geynayaa meeshaad ka timid etoobiya muddaad kala nasanaysaan inankaygu marka uu kolley soo go-aansado hadduu de xiriir dooniyo haddii kalaba marka waxaa laleeyahay moogtahay abo if you still want her haddaad weli doonaysid dhowr minoo ingiriisna waa layga dhex gelinaya moogtahay haddaad weli jacayl doonaysid haddaad relationshipka doonaysid with this waad soo ceshan kartaa haddii kalena dee hablaheennii baa buuxa waa maasha allah waan ooyey qolkii hurdadaan galay dharkii baan iska saaray dahabkiaan xidhnaa waan iska dhigay waan ooyey like I'm heartbroken waan qalbi jabsanahay waan niyad jabsanahay aad baan u ooyaya kabacdina waxaan arkay dhowr sawiruu leeyahay adduunyada wax iga doqonsan waa la waayay dhowrkii sawir baan ayaan qaatay oo isagu lahaa waxa ay tahay xasuus oon xalay oo dhanna ku feegaaray oon xalay oo dhanna intii aan salaada markaan ka baxay intaan tukanaya mooyaane intii aan ka baxayna wadnaan ku qorayey loof baan ku qorayey taariikh baan ku sawirayey maalintaas baranaan ku qorayey I love you baan ku qorayey sawirka dhabarkiisa waa ku feegaaray xalay oo dhan baan ku feegaaray moogta waa soo qaatay kabacdina boorsadaa kusoo dhexgeliyay boorsadii dharkiina waa kusoo riday waa soo xidhay boorsadii intaana soo qaadanin wadnuhu waa gariirayaa waa murugaysanahay ayaan dhigay boorsadii marka sawiradan baa ku jira magaranaysa boorsada iyo dhar dhowr yar oo shay oo dharaa ku jira waan soo qaaday baabuurka xaggiisa dambaan saaray baabuurka aniga laygu yeedhay dhinac kalu taagan yahay iyagu saaran yihiin maheen saaray baabuurkaa weeyaan baa lay tilmaamay waan koray baabuurkii marka aan koray inan saaxiibada inankii baabuurka waday baan ku uri taleefon ma ii garaaci kartaa gabdho aad u sharaf badan oonan weligay ilaabi doonin oo hargeysa ku nool oo sharaftooda iyo cisigooda hablaha soomaalida aad bay isku damqadaan oo isku jecel yihiin horta taana aad baan u jeclaha ayaan la hadlay waxaan ku yidhi oo ila ogeyda qisadan iyo filinkaygani jacaylkan waxaa oga ayay igu tiri maxaa ku helay markaasaan ku yidhi way soo saareen say tiri kaale aniga gurigay kaale adigoo sidana number one ma safri kartid number one na safarta ma doonayo number two na safarta ma doonayo gurigayga kaale ii kaale wallaahi inan yaroon dhaqan garanaynin oon xeer garanaynin oon garanaynin ma garanasaayay dhaqan baa la iska qaadaa odayga afkaa kugula hadlay naag hargeysa ku kortay gabadh hargeysa ku kortay afkaa uunu kalagumuna hadleen waxaa qaban lahaa xeer baa qaban lahaa oo dhaqan baa qaban lahaa oo waxay baa qaban lahaa oo kan baa qaban lahaa sidee baasaa lagugu hadlaa waalidkaabaa noolo magaalada hargeysa jooga hadduu la xaajoonay muxuu waalidkaa ula hadli waayay sidee bay ku dhacdaa inantii baa hadashay kaalay ku tiri okay kaalay gurigeyga anu marka waxaan iibaba muuqday inankanaan jeclay maalay gurigii markaan imiday inantii wax ii gelisay cabaayad sugaal bay ii gelisay cabaayadda laga hoos xidho garan bay ii gelisay waxaas dhan waxay igu tiri meedho suuligeeda markaan galay baafkii waan ooyayaa gebigii waan ooyayaa biyihii bay ku shushubaysaa naa meedho kaa waxay doonaysaa inay toosiso oo like you know nolosha igu soo celiso aniguna gebigiyguba waan maqanahay maskaxdayna waan maqanahay shalab xun ima odhanin anigu ninkani hadal ima odhanin odaygana igu soo toogtay adigu odaygana wuxuu odhan lahaaba meesha iyidhi kabacdina inantiiba way gilgilaysaa asmadaas ay haysaa allooyey beenada maxaanu samaynaa biyay dusha igaga shubta madaxa igaga shubta meedho bax waxay leedahay ina yaro qurux badan baa tahay mustaqbalkaaga dhan baa hortaada yaalla maxaad qoorkaankan ku falaysaa annagaaba markii hore kula yaabanaynu lahayn qoorkaan maxay ka doonaysaa maxaa ku helay way gilgilaysaa waxaana nuguma jeedo halkii maskada looyay kii lagu yidhi laba jaalaad kusoo hubsataa ka tegin ayaa kolba gaariga beeb ka siinaya oo bimsadaan kusoo noqda waa darawalka war waxbaa kusoo noqon oo laskaga tegiyada annaga baabur saaran hadii tegaysay may wallaahi ka tegin baa lagu yidhi laadeenka kusoo hubsato xataa waddanka layga tarxiilaya adigu meel kala jeedaa inantii maxaa loo dhahayay inantii lasoo tarxilay lagasoo tarxilay inantii baa jirid lasoo tarxilay baa magaceed ayaa lay tarxiilaya markaasaan waxaan idhi okay waan soo fuulay baabuurkii waxaan idinka ilaabay baabuurkan intaan soo saarnaa kaba ma gashanay waan ilaabay kabahii wallaahi bilaahi maswaral baa idrantii lasoo saaray saasaa dooni laysu saaray meel kala laygasoo halkii wajaala laygu soo hubsanay kabacdina ma ilaabo kaba ma gashanayn gurigii markaan kasoo baxay naxdintii iyo welwelkii iyo hadaladii ugu yidhi iyo fikirkan hadallada ka fikirayay iyo aniguna ma ii qof ma garanaysaa labada qofna qof aan garaad lahayn weeyaan hadalku markuuna qofku garaad lahayn waa dul maraa qofna waa qof hadalka dhuuxu fahmaya waa fahmaya hadal kasta uu leeyahay waa idamqaysa waa dareemaya you know qof garaadkeedu soo jeedana laakiin
dhibaato waxay ka taagan tahay geesinimadii aan iskaga celin lahayn oran lahayn war hosheeya ayaanan lahayn kabacdina waanigan meeshii sidii wajaaladii ku tegay marka waanigan uur baan leeyahay sidaan idiin sheegay kabacdi muddaan maqnaa muddo markaan maqnaa ilmahaygii baan ayaan umulay inantaydii baa markaan umulay koowaad markaan inantaydii umulay intaas xidhiidh wax anagama dhexaynin taleefonka anigaa la hadla oo idhaahda halkeed joogtaa halkeed ku nooshahay lagama qabto laylama hadlo walaashiyo xilligaa ku sugnayd hargeysa baan ayaan qaraaca oon la hadlaa oon ku idhahdaa waan jecelahay mala hadli karaa iyaduna waxay ku tidahdaa ma doonayn inaan soo dhex galo I don't wanna get involved ay tiraa I don't wanna get involved waxa weeyaan ma doonayn inaan sheekada dhex gala dee meesha in arrimaha wado I don't wanna get involved bay ilaada markaan dir dhaba ilmahaygii ku dhalay maasha allah iska joogo ayaan sidee baad ula xidhiidhaa musalsal baa bilaaba musalsal la yidhahda inanta yar way xanuunsanaysaa inantii yaray gacan baa xanuunaysa maalmahan bay ku jirtay baa sidaa yara noqotay dhakhtar bay rabtaa deg dega aabaheeduna soo eegay rabtaa waxaan sila intaa ku soo eego isaga yimaado soo dulo laakiin markaasaa wuxuu yidhi waxaan kuu soo dirayaa buu yidhi oday adeerkaya oo dardhabadaa jooga ayaa soo eegay inanta yar inay gacantu si noqotay in kale gacantan inanta yar waxma noqon jinka caafimaad qabay waxaan isleeyahay intuu yidhahda inanta yar baa xanuunsanaysa hawga soo yidhahdaa soo duula yimaado may buu yidhi inantaydu markay week jirtay excuse kasta sameeyey gabadh taydaan ka hadlaya anigu noloshaydaan ka hadlaya tanina noloshan hadda ku jira ma aha waa nolol aan soo dhaafay wax sababahaan u sheergaraynayna waxaa kamid ah gabadh kale wiil kale oo xaaladii aan ku sugan inay khibrad ka qaataan ma garanaysaa inay ku dhiiradaan inay ka hadli karaan it's okay qofku hadduu dhibaato hore usoo maro ma aha dhibaatada waa lagu waaraa laguma waaro waa laga gudbi karayaa dulmiguna ma fiicna haddii lagu soo dulmiyey aamusa waa ceeb u shubnay maxaa ceeba wax ceeba weligay ma samaynsa xalaal iyo sharaf leh qurux leh baan guursaday jacaylkii ugu weynaa baan u qabay qofkii aan guursaday wax xumaanoon anigu sameeyo kolley arkayo oo meesha farta igu fiiqa ma jiro waxaan fudaydka ahay fudaydkana waa u dhashay walaalo kaasi dawo male kabacdina waxaa sameeyey meeshii inantii yara horta mar waxaa idhi lug baa jabtay gacan baa jabtay meel walba waa sheegay xumad baa haysa wax walba adigu oo horta kusoo barbarsiyoonay ma kusoo barbarsiyo intaa waxaan isla isagu hawuu soo yidhahda yimaado waa iman waay jaafeer baan cabay xataa anigu beri baan qisadaa mad soo marteen jaafeer baan cabay oo maanta laga bilaabo anu waa dhimanayaa inan saaxiibada iyo etoobiyaana ayaanu tagay markaasaan nidhi jaafeer baan saa u qorshanaya jab taleefonkana ka garaac oo af ingiriisi xoogaa yar garanaysa waxaad oranaysaa help she's dying baad oranaysaa baan leeyahay jaafeerkaa cunaya haye jaafeerkii baan sidaa ugu yaro qoosha biyey saan afka saa ugu yaro shabisay jaafeerku waa wax aan fahmi waagibiis waa iga daadig waxaan iska noolo iimaanka alle ka qaat waa tuuray wada diyadii inatay ku qorantay weeyaan diyadii inatay ku qorantay dambiyaanka weeyaano wallaahi billaahi inaan weligii ilaawin she's dying baa ka dhacday way dhimanaysaa she's dying help kasta loo waca ma help ba meesha jaafeerkaa iska noolo ismaay waxba dhiman mayside dhimashada waa ka baqdaa baan waa nafta waa jeclaa ninkii maalintii waxweeraha ku daadanay wuxuu yidhi maanta soo baxaya ila buuqi waa ka yaran waaye maalinba waxbaa dhintaan leeya anaaba dhimanaya waanigii maalinta dambe wuxuu is yidhi intaanay ku odhanin maalinta dambe fooq baan iska soo tuura qofkani waabay malaha waalan tahay baltag kabacdina waa kan soo cararay inankii wuu soo duulay tabigu yidhi kada waa iibi midra dhamo alla markaasaa naf wax jecel balaayana waa caafimaadaan ku umul baan ahay marka haddana orod waxa iga orod badan ma jiro caloosha baasha lagu xidho ku xidho koonfeer etoobiyana halkana tag burcad isku radi waxaan kula kareemada dusha la marsada marso waxaa lagu kala wejiga dhabanada saa u saar inay dhabanadaasi casaayeen maran oga halkaa mid baan saaray waxbaan halkaa saaray halkani waxaasay u fiican yihiin wax walba cunay wax walba marsaday waxaas leeyahay sidii hore maanta ka qurux badanay dhafoorkaan maanta leeyahay ma lahayn baan gurdaaminkaasi way degeen welwel isaga aan haynay ma hayaanay baybidu saa u eegay baybidii buu dhunkaday horta wax la sheega aaba fiican bu oo ilmihiis aad u jecel ilmihii buu hoosta geliyey waan daawanaya anigu waxaan isleeyahay intaa kuleed waad qurux badan tahay ilantimaan haddan doono waa soo kala dhaystay ma arkayan intayn
timahan kor baa iigu feedhayin wallahi inaanu arkayn xaaraan bay ka tahan kuri inaanu arkaynin timahan ii ka faraysan saasuu leeyahay wax walba caadi baa waa caadi goormaynu aan waxaan doonaya inaan gurigii ku noqdo markaa hargeysadii oon isaga iga heshiino oon meeshii ku noqdo meeshii ba iga haysaa waa inanta mrs warlid waa fahansanay meeshii waa laga karin waxa u yaalla meesha waa halkaasoo kale meeshaasa anigana meel hargeysa meel aan ahayn ima qabanayso waxaan ku idhi hadda waa layla tiriyo gabdho badan oo saaxiibna ila tiriyo igu iri ninka xaaraantii nebi xarimay agagaarkiisa yaan ugu arkay maalin dambe ninkaa warqadaada ka qaado maxay ka qaado waa layla soo taliyey laakiin anu tii lala taliyeyba may never tii lala taliyey may taydaan wataa I was like, you know, waan kacayaa maanta waan raacaya okay marihii baan soo aruursay islaantii hooyada iyo reerkii bay dhahay xibulada naamalaha sidana caadi kuma sidin adeer umul baa tahay iska fadhiyo hooyadaa baa ku umul saaraysay gurigaaga joog waxaan idhi may mar hadduu guri ninkayga soo noqo diintaa waxay tiri ninkaaga hadalkiisa hadal aan ahayn ha maqlin ninkayga hadalkiisaan maqlayn anigu diin ma dhegayst markaan maxaa diinta dhegaysigeeda waxa weeyaan xadiisyadana nusoo gabanaya nugusoo gabanaya waa ninkanaa jecelaha islaantii hooyada maqlay may diintu waxay tiri hadduu ninkaagu guuradayna mari waynu baxaynaya hadduu aabaha dhinta xataa xadiis baa odhan jira uma tegti looma tegi ma ogola diintu ninkayga warkiisaan maqlayaa hooyadayna ninka waa jecelahay baan odhan kari waaya mogta ayu waqti like that ninkaa waan jecelaan odhan kari waaya mogta hooyo ninkan kama harayo waa jecelahay mar hadduu ilay tusay isoo raaca oo isoo noqa shadadaydu waa diyaar waa raacaya ninkan kama harayo aniga ilmuhuba isagaan raacina waa odhan kari waaya hooyada waxay leedahay hooyaan ku baxraaniye aniga ku sorry are you gonna fix your hair? Yeah, can I do it? Why would you do it? Can I find my hair? Do you want to do that? Yeah. It's okay, right? No, you're not gonna definitely you're not gonna do that. adkaatay baan ku anigu orodkii islaantooda waxay tiri hooyo aan ku gabadhu markay qofkii ugu horreeyay wuxuu umulana xaafadayda aniga ah oo ilmo dhala ilmo iga yarna ma jiro anagu reerkayga sanadii soo sheegay qof walbaa buu ku faraxsan yahay ilmahayga inuu arko walaashayo aniga iga weyna waxaa jirta maama ah oo dahab ah oo qof dadka adduunka ugu wanaagsan ka mid ah kulli ilmahaygay doonayeen hayaan waxay rabaan aniga inay ilaaliyaan hooyadii hadhicin hajaban bay leeyihiin xaafadii gabadha ugu yarayd baan ahay oo ilma dhashay welibana oo ilmihii koobaad ee faamiliga oo dhan ba ah علشان dad aad loo jecel la rabaan mariyahayga waa urursadeen waxa uu urursaday mariyahayga meeshii soo socda bal waa la iga tiri waxa la leeyahay ninkan aad socoto hooyo ma iska nisati marka dhib baa igu soo dhacayna aan ma odhanin oo hooyaday anigu reerka xaafadda ka bacdina waxaan idhi anu aad baan you know aan ugu taaganahay inaan tago hooyada waxay leedahay hooyo gabadhu markay afartanka ka baxdo oo reerkeeda ku reereeto oo reerkooda la joogto you know waa inaad ayaad tagaysaa hadda ha tegi may waa tegaya anu maryahayga ursaday dhan baawarka goorbaad inoo keenaysaa wuxuu ihi may adis baan tegaya 2 days baan adis ababa joogaya go-aankiisa isugu waa cadiya ninkan adis baan 2 cisho joogaya adis baan ka tegaya markaan adis ka tago ethiopia waxaan tegaya hargeysaasaa ku tegaya kabacdina adis abaad imanaysa adiguna ilaa adis ababa diyaarada soo raacaysaa diyaaradda adis ababaad kasoo raacaysaa hargeysaad imanaysaa okay saasaad ku imanaysaa okay hay asma raacayno may 2 cisho baan leeyahay madaxana waa dejisanaya waxaan isla markii hore baabuur baa lagu soo saaray asmaay iminkaaba diyaaradda lagu sii saaraya shabdhe ninkiina waa wada heshabeen waa kan markuu heshiiyey waa aamus maryahayga waa soo qaatay waxay waa diyaarsaday markuu sii baxayay ayuu wuxuu sameeyey envelope maxaa la envelope bashqadaha ayuu lacag ku riday lacag meelaha $3,000 ay bashqadii ku riday meeshaan fadhiyay buu sidaa u dhigay marka wuxuu waxaan rajaynayaa inaad dhalasho u samayso inaad heer 40 bax baan rabaa inaad samayso bensi kuma jirto inantii naga baxday oo jira soo waxa dhacday wallahi marka okay Part 2 baynu ka dhiganaynaa insha Allah halka wixii ka dambeeya part 2 baynu Part 3 part 2 Part 3 عادين باكوري علم بودري مال بيدرس صدق يسان شيكوي I know but
asmaay horta ilaa maanta waan aamusnay halkaa haddaan commenti ka bixiyo hado qof kasta oo wax jeclaaday oo really love ku dhacay uunbaad dareemi kara macnaha dadka qaar waxay iskaga arkayaan sheeko for faniya ma fahantay mise inta aan ku garanayna waxay moodaysaa samays laakiin waxay doontaba ha noqoto qofku markuu marxaladaha qaar ka sheekaynayo qofka really love ku dhacunbaa garan kara moogta qalbi na bini aadan lama baqancin karo nasr ayaa may qalbi bini kara bini aadanku aadan important maaha laakiin sideedaba ha macnaha aaminhan ba ha aaminhan attentionkaygu waxaad moodaysay si dhiibliyaan kuula socday xitaa gurigaan sawiranayey gaadhigaan sawiranayey ha inanta labaadee u tagtee ku kaxaysaan sawiranayey ha qofkii ku kaxeeyey hawsbaadhigii baan sawiranayay macnaha sikin halkaad u istaagaysay aniguna marxaladda waan kugula jiray ma fahanti marka waxa weeyaan qof kasta oo qofkaas nolol qofkan edebta daran ee maxaan ku dhaha jeedha gabadhu faamilkeeda la daawanaysa filin may soo intaad daa igu walaalo intaad igu iska sheegtana daawo adiga ma asma fahantay waan love gurbadaa you hadalkaada sister igu tiri magaranaysaa nasraay meel Mm. bay taabatay inuu because qofku markuu qof jecel yahay muu dareemi karaa inuu meesha ka taabto ah may asmaay ihuuno anigu noloshaada waan garanayaa yaraantaadii baan garanayaa arooskaagii baan joogay gurigaagii baan garanayaa nolosha qofkaad la wadaagtaan garanaya macnaha wax kasta oo aad ka sheekaynaysay si dhiibliya umaan ogeyn laakiin wax walba waan la socday walaalo waanan garanayaa si kalena kula dareen baan hayo qofka markuu really love soo maro uu garan karaa marxaladda nolosha dhabta ee jacaylka marka qof qalbi leh oo qalbi nadiifa leh oo wanaagsan dadka jacaylka dareemaana waxa weeyaan dadka qalbiga fiican ee naxariista badan ee wanaagsan ee qalbiga wallaahi qalbiga alcadiim ee qalbiga weyna yar ballaaran qofka hadduu ballaaran aad qalbigiisu aad ballaaran yahay qofka qalbiga fiican leh qof buuran wuu bisaraaxa qalbi ballaaran yahay qalbigeegu ballaaran yahay walaalo ciao iska maya xid meesha may iska bax walaashay waan ku jecelnay habeenka dambaynu baartito baynu ka dhigaynaa thank you anaguna qisooyin kale iyo hablo kale oonu garanayniyo waan aniguna qiso kalean idiiga sheekanaya oo my best friend ku dhacday weliba nolosha benti baa inoo soo furaysaa kaale nasra inoo sheekay benti inoo soo fur meesha ilaa hadda la joog Benzi I love you so much waa ku salaamay hello babe maya qisada jacaylka adigu maan kula sugaynaa baartito markaad bilowdo waan soo qabanaynaa markaasaynu dib u bilaabaynaa thank you sister filinka iskala daawo odaygaaga nolol qurux badan oo wanaagsan waayo arag baad noqotay wax badan baa kuu duumay waa ku kaa jumcayso 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 ha haye derbisaar iyo dabaqsaar ma jirto mar labaad ma dhacayso hal mar unbaa qof kuma arag hal hooyo mar unbaa dheema I jaanis love you ku so dhacda much okay I love you guys isoo follow gareeyintiina okay sugaan u sheega bensiya bensiya waxay habeen dambe rabtaa waa inoo fiican caawa habeen dambe waayo haye insha hal allah baby insha allah baby macma my baby sister hal haye daqiiqa sugnaa dhagooliyay dhegayso bensiya waxay dooratay kuushiyaad gashanayd bay dooratay asmo ayatii oo dahabiga ahayd soma taasay dooratay ha okay boorsada laakiin boorsada ma iyada dhan one color baad rabtaa inay noqoto mise inay wax ku dhex jiraan You should have tried, but 10 times. bye bye asmo bye bye asma asma namarkaaga ii sister soo dir asma habeen dambe horta dadka aan u fayaamino habeen dambe qisadu halkaasay kasii soconaysaa saacaddu marka ay tahay 10 habeenimo UK 12 habeenimo Africa Yurub 11 habeenimo absolutely yes ay bari dikooga haye macaan love you shaqaalayaal baa jooga jug jug iyo balaayo yeeraysa ilaa gurigiiba baanta soo galay inay dhisayaan so ma furi karo qol allahay ka alla qol war ma karo haye baan ka qabanaya haye ha waxaa loo dhisayaa gurigaa loo dhisayaa cadiin baan fuudhi cilmi bowdhari meel bay iska soo dhigaysaan sheekooyin waa qiso cajiib oo xanuun badan barnaamijkeena ka tiri doonaa sheekadaas aa ujeedaan waxay ku dhacday gabar oo si fiican loogu falanqeynaysay qof walba oo qisooyinkaas oo kale haysto ama la fadhiyo waa soo dhaweynaa hadda dad badan ay la soo xiriiro barnaamijyahaas inay ka sheekeeyaan rabaan waa idin soo qaban doonaa
tan iyo mid kale midaan intaan ku kulmi doono waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.